Marxim waxaa jira biyo ku jira isha gudaheeda oo sababi kara inuu qofka indhoolo noqdo haddii intii loogu talagalay ay ka badnaadaan. Biyahan dadka badanaa waxay ku qaldaan ilinta soo daadata indhaha ee uu qofka arko. Marka dad qaar waxaa arkaya ilintaas badan oo ishooda ka soo daadanaysa dartiis u maleeyo inay tahay biyihii dhalin kara indhoolnimada. Haddaba biyahaas dhaliya indhoolnimada waxaan u naqaanaa aqueous humor. Biyahan banaanka indhahana ma soo baxaan oo waxay ku jiraan isha dhexdiisa ayay ku jiraan. Haddaan idin tuso meesha ay ku jiraan waa intaan lens meesha ay ku qoran tahay hortiisa iyo meeshaan dhexe meeshaan iyo meeshaan oo lensiga hortiisa ah, labadaas meel ayay ku jiraan. Waxaana loo yaqaanaa biyahan aqueous humor. Biyahan intee laga soo saaraa? Biyahan waxaa soo saara qayb ku dhex taala isha dhexdeeda oo loo yaqaano ciliary body. Sida sawirkan ka muuqatana waa qaybta kalarkeeda laga dhiga pinkiga. Labadaas meel ayaa soo saara waxaana loo yaqaanaa ciliary body. Markii la soo saaro kadib intay ka baxaan marka? Waxay ka baxaan meel aan u naqaano angle. Marka calaamadan buluug soo jeedaan area-dana laga soo saaraa. Meeshaan waa meesha lensiga hortiisa ahaa. Kadib meeshaanay soo maraan. Kadib meeshaan calaamadan buluugay raacaan. Waxay ka baxaan meel loo yaqaano angle. Haddaba biyahan ishu maxay u taraan? Biyahan ishu waxay u dhaliyaan cadaadis. Cadaadiskaas wuxuu ka qayb qaataa in uu ilaaliyo qaab dhismeedka isha. Waxaan tusaale u ah sida kubadda cagta oo kale. Banoonigaas cadaadiska hawada ee gudihiisa ku jirta ayaa dhalisa qaab dhismeedka uu leeyahay. Haddii cadaadiskaas hawada laga saaro banoonigu isku dhex dhaca. Si la mid ah isha, biyahan waxay u taraan inay u dhaliyaan cadaadiskaas si ay u yeelato qaab dhismeedka hadda ay leedahay. Cadaadisku marka normalka ee loo baahan yahay qof walba inuu u dhaxeeyo waxaan dhahnaa waa 11 ilaa 21 mercury. Waxaan u soo gaabinaa IOP intraocular pressure ama pressure-ka isha gudihiisa ah. Haddii marka 21 uu ka bato 25 30 iyo wixii ka sarreeyo waxaan u naqaanaa high intraocular pressure ama pressure-ku inuu ka badan yahay intii loogu talagalay. Kaasna waxay dhalisaa in neerfaha dambe ee isha dhaawac uu gaaro. Waana biyaha dhalin karaa haddaan qofka laga hortagin oo waqti hore cadaadiska la yareynin inuu qofka aakhirka noqon karo indhoole. Oh my God.